cabashooyinka laga muujinayo doorashada ka socota maamul goboleedyada Soomaaliya lagu soo xulayo xildhibaanada aqalada baarlamaanka ee hoose iyo sare ayaa waxa ay soo tareysay muddooyinka ugu dambeeyay cabashooyinka laga muujinayo warbixin arintaasi ka hadlaysa isla markaasina lagu qaada dhigay waxa inoo diyaariyay wariyahayaga Axmed Koofi kulankana ay isugu yimaadeen qaar kamid ah aqoon-yahanada waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha Arab Soomaaliya oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa kulankan ujeedkiisu uu ahaa in beeshu ay kaga hadlaan aayahooda ku saabsan xildhibaanada kaga mid noqonaya baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo ay sheegeen in xilliyadii ugu dambeeyay beeshu ay soo wajahayeen caqabado ku aadan in la musuqmaasuqay kuraastii xildhibaanada ay ku lahaayeen aqalka hoose siyaasiyiinta qaarkood oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in beeshu ay xilligan wixii ka dambeeyay dacwadeeda u gudbisay guddiga khilaafaadka ee doorashooyinka iyadoo ay sheegeen in loo baahan yahay in cabashadan wax laga qabto waa kuwan qaar ka mid ah dadkii kulankaasi ka hadlay maanta waxaan isugu nimid in aan ka hadalno sida naloogu xadgudbay loogu talagalay in lagu burburiyo jiritaanka iyo magaca Arab Soomaali annagoo musharaxiinteennii sharafta lahayd wadano ergadeennii ugaasyadeennii malaaqyadeennii dhammaan beeshi ay u dhantahay ay joogto in annagoo filayni in sida Soomaalida oo dhan ay maamulkaas uga qayb gashaan uga qayb galno in lagu sameeyo faragelin nala dhahay waxa tagaysaan Jowhar taas annagoo ka soo jeedinay baaq oo dhahayna amaana lagu sameeyaa maxaana loo fogeysanaa maxaana looga bixinay Muqdisho oo aan ku badannahay dareenkii aan qabnay waana lagu la kacay waxaan u dhacay jab weyn waxaan noo geystay madaxweynaha Hirshabeelle uuna kala qaybiyay tafraar uuna galiyay annagoo mid ah oo Arab Soomaalina midaysan ayuuna kala qaaday asagoo kala dan gaar ah oo fiirsanay danihiisa sida ay sheegtay walaasha Quraysh annaga waxaan lagu ogaa Banaadir Hirshabeelle hal xildhibaan nooga soo galay xildhibaankiisi uu haystaa oo u jooga xildhibaanka gobolka Banaadir ka sharaxan ee Banaadir annaga Banaadiraan macnaha ka soo baxnay waxa intuu u dafay u qaaday looga ogolaaday uu geystay xaq inuu dhacu rabay waana na dhacay waana ka sii hadalna waa ka sii afeef dhiganay in uu na dhici doono wayna dhacday inuu na dhacay ma fahamteen sameeyeen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Umar Dhagay iyo Hirshabeelle kali wax ma sameyn karo sababtoo ah anigii oo dhan salaadiintii odagii noogu jiray 135 anigoo ugaas Jubbaland ah odaganoo Malaaq Baydhabo ah kii Hiiraan annagoo wada dhan iyo ergadeennii iyo masharaxeentiinii ayaa meel nala fariisay 8 saacadood ma wax la xariistay waa dulmi Soomaalidana waxay tiraa hal xaaraana nirig xalaal ma dhasho marka gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay xildhibaan Dayfullah oo kamid ah xildhibaanada beesha kulankan maanta isugu timid Muqdisho beeshu isku tala darsatay iyadoo ugaaskeeda ka amar qaadanaysa waxaan go'aansanay inaanan cabsanin dad cabsada manihin beel yaqaan ayaan nahay oo taariikh iyo sharaf iyo geesinimo lagu yaqaano waxaan goosanay inaan wax ka soo naftaas la kulmayso inaan socno oo galna meeshii hadafkanagu ahaa markii meesha aan tagnay waxaan ugu tagnay iyadoo erga la diyaarsaday oo teesaryaal loo daabic rabo waxaan u mahad celinaynaa markaas mowqif fiican ayuu qaatay madaxweynaha Hirshabeelle ku xigeenka mudane Guudlaawe wuu diiday arinta wuu joojiyay wuxuu arkay inay tahay gardaro guddiga ayaa la hadlay in ugaaskii ay la soo hadleen ugaaskii beeshii ay soo socotay ergadiisiina sidii ayuu uga qayb qaatay maalmihii hore meesha joogneen inkastoo meesha lagu rafaadiyay oo 7 cisho ay fadhina cilla aan u fadhina bilaash bilaa macna aan u fadhinay ugaaskii oo hogaaminaya nabadoonnadii beesha oo nala socda ergadii ay wadaan ayaa waxaana lagu hayay usbuuc ku dhawaad wax aan fahmi weynay nihaayadin waxay ku dhacday habeen hore in 8 saac dad erga lagu sheegay magaalada laga soo ururiyay la geliyay goobtii doorashada gudoomiyihii guddiga doorashada ee heer deegaan mudane Farxiyo iyo dad ma lamid ah oo Ilaahay aqli u siiyay oo wax garad ah wadaniyan ah waxay yiraahdeen anagu raali kama noqonayno dulmi inta in arintaas sameyn ka horna guddiga sharafta badan wuxuu soo saaray warqadaas aad ku wada aragteen war saxaafadeedka ay soo saar go'aanka ay soo saareen ee meediyaha meel walba la geliyay taalo markay arkeen guddigaas fargelinta ba'an ee lagu hayo
kursigan ayay soo saareen qoraalka intaas la eg labada page ka kooban ayna ku saxiixan yihiin guddiga sharafta badnaa intoodii qiimaha iyo qaayaha lahayd lama cabsanin lama dhihin waad ka shifanteen ee la dunqdo waxaad wadaan maalintii ku xigtay waxaa la sameeyey habeennimadeedii in la xareeyey ergabeen abuur ah oo aan beesha dad xataa dad aan ahayn ay ku jiraan dad saraakiil ay ku jiraan dad ciidan ay ku jiraan oo magacyadoodii iyo darajaadka ay leeyihiin iyo qabaa'ilkay ka soo jeedaan Soomaaliyeedna aan hayno oo naloo soo diray marka waxay nagu tahay nasiib daro mudane avukaate Cumar Dhagay wuxuu markuu maqlo wax yar baa meesha ka jira waxbaa ka jira wuu u ordaa diyaarad ayuu raacaa laakiin markuu maqlay meeshaas dhib inuu ka jiro guddiga halka u mathalayeen uu soo saaray warqadaas kama unan jixin kama danqanin halkan ayaa ugaaskeena iyo nabadoonadeeda lagu celcelinayay bil ku dhawaad Ahmed Kofi, Somali News TV, Muqdisho.